wax walba way isbedeli doonaan 1 Oktoobar. Bacmadooda Muqdisho waxay ka noqon doontaa Katarban. Dowladda ayaa ku dhawaaqday dhulka, cirka iyo badda in bacmadooda haba yaraatee laga wali karin. Marna 1 Oktoobar wax badan waa isbedeli doonaa. Bacmadooda ayaa noqon doonta Katarban oo Muqdisho dhibaato badan ku haysa. Dowladda ayaana go'aansatay in bacmadooda gabi ahaan dalka ay ka saarto ayadoo dadka dunyada iyo xoolahaba dhibaato weyn ay ku hayso. Waxaa la ogaaday bacdaasi markii la daadiyo oo wasaq lagu daadiyo in dad soo aruursada dhaqaana feereeyaan ku iibiyaan raashinka kala duwan halkaas Soomaaliya feeris ay u bixin. Bacda marka waxaa la ogaaday in dhibaato weyn ay ku hayso dalka. 1 Oktoobar wax badan ayaa isbedeli doona. Dhulka, cirka iyo baddaba innaba bad bacmadooda lagu soo geli doono. Qofkii lagu arka soo iibinayana dowladda waxay balqaad inay xabsi gali doonto iyo ganaax ka qaadi doonto. Sharciga dowladda keentay dadka ma hoggaansan doonaan oo sharci ma qaadan karaan oo dadka shacabka Soomaaliya ayaa weli la yaaban bacmadooda in Muqdisho gabi ahaan laga jiro ayadoo gobollada Soomaaliya qaar ka mid ah laga isticmaalimo bacda dhibaato weyn ay dadku haysaa bariga iyo dunyadaba iyo xayawaankaba dhibaato xooggan ay ku haysaa. Muqdisho kala bar qashka yaala waa bacmadooda oo wax walba oo feeris ayaa lagu shubaa. qof walba wuxuu rabo ku qaataa qashinka waddo iska daadiya. Dad ayaa la maqlaayay soo qaana bacaasi inay feerayaan dhaqaan badda geeyaan misna berina ka iibinayaan feerayaan ay warshad galiyaan iyo bacdii oo xalay adiga ku shubtay wixii wasaqda lahay beriso wax laga iibinaya oo feeris halkaas iyo ka imaada. Dowladda go'aankaani way gaartay 1 Oktoobar wax badan ayaa isbedeli doona oo bacda gabi ahaan Muqdisho ma soo degi doonto badda beriga iyo degadaba in innaba ay ka jin dowladda ku dhawaaqday 1 Oktoobar oo waxaa naga dhiman maalmo kooban. Talaadada Bariitaanada kale ayaana ugu dambeysay bacmadooda in Muqdisho lagu gado. Dowladda waxay sii raacay qofkii lagu arkaa mar dambe asoo bacmadooda gadaaya ama se ka ganacsanaya in dowladda talaabo sharci ka qaadato iyo xanibaadka sirr iyo xabsi. Dowladda ayaa mar kale go'aansatay in bacmadooda Muqdisho gabi ahaan laga tiro ayadoo Muqdisho qashin darteed loo socdaaya oo dadkii ayaana feeris iyo wasaq ka qaadeen xayawaankii ayaa ugu daran xayawaan ayaa ugu daran iska cunaa bacda ruugaya misna inuu beerka fariisa xayawaanka u dhimanayo. Bacda marka in la qabto lala dagaalamo waa muhiim. ganacsato badan ayaa ka walaacsan go'aanka degdega leh oo weliba digniinta lehna ee dowladda Soomaaliya u soo dirtay bacmadooda in gabi ahaan la joojiyo. Baqaara ayaa weli keed ku bacmadooda oo intaas milyan ee bacmadooda keed ku oo qarash ugu fadhiya ganacsadaasi. dowladda arrinkaas maxay ka yeeli doontaa oo ganacsadaasi qarashkooda muu celi doontaa maadaama intaas kun oo tan oo bac ay u xareysiin oo dhaqaale tiro badan ay ka soo bixiyeen. Dowladda dadka shacabka oo lacag ka qasaartay lacagta muu celi doonaan maadaama lacagta bacmadooda ka soo bixiyeen. Bacda waa lagu dhawaaqay in Muqdisho gabi ahaanba laga jiro awla og in Kismaayo waxay xabaana tiriyaa bac lama isticmaalo qashinku u Muqdisho hadda wada muuqaalka marka daawato dhigta bacda maxaa loo jaray maxaa laga rabaa adigu waa ogtahay in qashinku uu tiro badan Muqdisho in bacmadooda ay tahay wasaqda u in bacmadooda tahay wax walba bacmadooda ayaa lagu sameeyaa. Soomaaliya muuqaalka qabto meel gaarsiiyay bacmadooda 1 Oktoobar waxay noqon doontaa Katarban la raadiyo oo meel walba laga raadiyo noqon doontaa. Sharciga ay dowladda soo rogtay shacabka ay ganacsada maqaada doonaan muddo isbuuc ayaa ka hartay in bacmadooda laga dhigo Katarban oo haba yaraatee dalka ay soo gelin qofkii lagu arkaana xabsi iyo ganaax laga qaado doono. ciidan tarban ayaa loo diyaariyay oo goobaha lagu gado bacmadooda raadi doona markooda lagu dhawaaqo Katarban ay noqon doonaa. Soomaaliya waxa meel gaarsiiyay bacmadoodii dalka iska ahayd muwaadin ka ahayd oo qof walba ku adeega jiray ayaa maanta waxay noqon doontaa Katarban muddo 6 bil ka bacdi oo Katarban ay noqon doontaa 1 Oktoobar bacmadooda qofkii lagu arka soo iibinayo xabsi ayaa laga dowladda ayaa ku dhawaaqday oo bacmadooda dadka iyo dunyada iyo xayawaanka ay dhibaato weyn ku haysaa. Wadanka qashinku u tabaaya keenta xayawaanka qaarkood u dhintaaba si uu cunayso marka bacdi cunto ka bacdi xayawaanku u dhimanaya. sidoo kale feeriska laga dhaxlay ayaa ka badan bacdi aad turta adiga oo qashinka iyo wasaqda ku shubtay ayaa in lagu soo dhaqo lagu soo feereeyo ayaa midna lagu soo sajal laga soo dhigaa wax laga iibinaya ayadoo feeris in bad lagu geeyo lagu soo dhaqo meel maqal gaarsiiya. bacmadooda mar dhow Katarban ay noqon doontaa oo Muqdisho bacmadooda waxay noqon doontaa Katarban in la raadiyo